السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسو دوادا عشرة ديني بيسيقا أها فوريغس. عشرة ديني وحين نصو عنيان ينمدا من بلو إلى دمادنا وحنكو فاقي دونا سوقا انت نوعه كالبحو يوح والبو خسية برشاد السوقا. إن شاء الله وحنكو بلابينا عشرة بيسيقا وهرية forex marta macnahan forex marka la sheegayo forex ahaan ma macnaysmayso kaligeed waa laba eray oo isku tagtay oo foreign exchange labadaas oo isku tagay ba forex la isku yiraahdo Soomaali ahaan waxa ugu dhow hadaba macnahan Soomaali marka loo eego waxa ugu dhawaanaysa kala bedelka ama isku bedelka lacagaha qalaad ama sarifka lacagaha qalaad ayay noqonaysaa forex hadaba waa suuq maaliyadeedka ugu weyn adduunkan waxaana sida la sheegay maalintii dhex marta lacag dhan 6 trilyan oo suuq maaliyadeedka ugu weyn dabayna waxa naga xuseen 6 trilyan ee dhex maraysa ee wax kaliya ay ka caawinaysaa inaad faham ka haysato suuqan badahaan inta uu leeyahay suuqani waqtiyadu furan yahay ee laga shaqeysto ama waqtiyada shaqo walba oo aad taqaano shaqo walba adduunyadan ah waxa jirta waqtiyo ay furan tahay oo la yaqaan oo laga shaqeeyo inta 8 saacadood 5 maalin shaqo qaar 7 maalin ba maxan jiray 8 saacadooda hadaba forex waxay furan tahay 5 maalin shaqo 24 saac marka laga reebo sabtida iyo axadda sabtida iyo axadda marka laga reebo 5 maalin shaqo ee kale 24 saacadood suuqan uu furan yahay maxaa laga qabtaa ama laga shaqeeyaa suuqan hada waxa laga shaqeeyay waa sarif waxa la sarifaa lacago waxa la isku bedelaa lacagaha wadamada kala duwan ayaa la isku bedelaa shaqada laga qabtay waa sarifkii aad taqaanay ayuun baa lagu hayaa isagoo online oo ka duwan qaabkii aad u taqaanay sarifka masaad ha noqdo ama mid wada la fadhiyo ha noqdo aw sarifkii aad taqaanay ayuun baa casri ah ama lagu kala bedelanayaa halkan waxaan uga faa'iideysanaynaa ama faa'iidada aad ka helaysaa inuu waxay tahay farqiga u dhaxeeya labada lacagood marka isku bedelayso inta faa'iidada meesha aad ka dhaxlaysaa waa intaas waa halka meesha aad faa'iidada ka dhaxlaysaa hadaba yaa ka ganacsada ama ka qayb qaata suuqan ku sheegay yaa ka ganacsada ama ka qayb qaatayaasha ugu weyn ee suuqan ka ganacsada ay waayo koowa dawladihii lacagaha lahaa marka US dollar oo kale waxa iska la Mareykan dawladihii noocaas oo kale u lahaa lacagaha ayaa ku ka qayb qaata bangiyadu waa kuwa ugu muhiimsan waana meesha ay taalo lacagaha la kala bedelanayo ee dhan ama lagu shaqeynayo waa bangiyada hay'adaha dhaqaalaha kamid ah sida shirkadaha waaweyn oo kale Facebook Amazon wax amal saasa maalqabeena iyo hanti maamulayaal baa kamid ah maalqabeena hanti maamulayaalka waa niman xirfadlayaal aqoontii leh bartay wixii kadibna lacago intay ka soo qaataan shirkad waaweyn lacagahooda ugu shaqeeya kadib faa'iidada siiya waxa kale oo ka qayb qaata qolooyin oo daraso oo leh in dabagal iyo odrasyo noocaas sameeyo qaybta lixaadi waa tafaariiqle ama retail sellerka kuwa leeyahay waa inagu oo kale waana qolooyinka jaaniska u helay laga soo bilaabo sanadkii 2006 intii ka horeysay manager ka ganacsiga tafaariiqleyda ama adoo kale ee fursad waxa u heleen wixii ka dambeeyay 2006 hadaba maxaa faa'iido ama muhiimada oo ku jirta inaan barano kuwan ka qayb qaato suuqa waxay ka caawinaysaa inaad garato cidda saameyn ku leh ama bedeli karta lacagta aad ka ganacsanayso saale dawladda lacagta lahayd oo dhibaato ka dhacdo lacagteedii hoos ba u dhacaysaa bangiyadan hadday dib ku imato saasoo kale cid walba oo kamid ah intan way bedeli karaan suuqa shanta sare marka waa inaad faa'iidada ugu jirto waxa weeyaan fundamental ahaan inaynu u dhisano ama u ogaano in suuqan saameyn ku yeelan karaan intani maxaa laga ganacsadaa suuqan hada waxa looga ganacsadaa suuqan platform ama program leh graafiyo
aad ka akhrisan karta ama kala socon karto hadba meesha oo suuqu marayo. sidaad aan platform inta badan trading view la isticmaalaa laakiin MetaTrader ma isticmaala. graph platform sidana oo graphs lacaguhu meesha ay soconayaan xagga ay u kacayaan inay dhacayaan aad kala socon karto ayaad uga ganacsanaysaa suuqan uga shaqaysanaysaa. su'aalo ganacsiyada sariflayaasha wadanka oo kale Soomaaliyeed oo kale waxa jira sarifka iyaga say doonaan u beddesha oo mar walba isla soo hadlaan sarifka inta tan halkan platform-kan baad kala soconaysaa mar walba sarifka lacagtu meesha u marayo inuu kor joogo iyo inuu hoos joogo platformska aad ka ganacsanaysaa. hadda waxa ku fududeynaya suuqan sidoo kale inaad suuqan ka ganacsato waxa ku fududeynaya ugu muhiimsan waa dilaal ama broker. wuxuu ku sahlayaa saad uga ganacsan lahayd suuqan isla markaana wuxuu kugu xidhayaa suuqi waxna ku siinayaa platform-ka ku ganacsanaysa. yaani suuqa saas u weyn saas u ballaaran adigu intaad dhowrkaaga 100 ama dhowrkaaga 1000 la soo cararto meel kale ma geli kartid. waa inaad haysataa qasbiyan broker ama dilaal suuqi kugu xiraya isagana ku siinaya platform-kii aad ka ganacsan lahayd. broker kaasna gudihiisa waxa yaala lacagihii oo dhan lacag ma raadinaysid lacagihii oo dhan platform-ka gudihiisa ay yaalaan ama broker kaasa ku haya arrimaha uu ku fududeynaya inay ka mid tahay dilaalkan ama broker kale. haddii inta isla soo fahanay lacagaha laga ganacsado aan soo noqono horta suuqan lacag walba way taalaa shilin Soomaali baa yaala lacagtii birka Etoobiyaanka yaala waxa kale oo taala lacagtii Djibouti faranki baa yaala lacag walba oo taqaana ama maqashay way taalaa. laakiin lacagaha ugu dhaqdhaqaaqa badan ama ugu awood weyn ee suuqan laga shaqaysto ama laga ganacsadaa waa intan waa lacagahan halkan kuugu soo qoray. lacagaha ugu badan ee ugu awood badan ee suuqan laga ganacsadaa waa lacagahan weeyaan. kow waa USD oo lacagta US dollarkii ama lacagtii Mareykanka, eurodii lacagtii Yurubta, Great Britain poundkii oo lacagtii Ingiriiska ah, New Zealand dollarkii oo lacagta New Zealand ah, Australian dollar, Japanese yen iyo Swiss franc. waa lacagaha ugu awooda badan. lacagta China xataa ku jirta laakiin ana ahaan todobadan aan soo qaatay lacagaha ugu awooda badanna waa intan. haddaba haddii aan forex iskula fahanay macnaheedii guud ee hore cashiradan sida aan sheegay waxay noqonayaan kuwa taxana oo soconaya fiidiyogan ahaan imika ahaan inaan intaynan ka bixin forex ee aan dhex gelin cashiradeeda iyo soo shaqeeyaan iyo platformyadan soo shaqeeyaan iyo waxaas waxa ugu muhiimsan horta forex inaynu isla fahanno iyadoo waxay tahay marka isla fahanno aynu galno. daba cashirkan ku xiga waan ku baran doonaa platform-kan aan sheegayaa ee suuqa laga ganacsanayaa muxuu yahay magacii qaabku u shaqeeyaa waxaas dhan waxaan ku baran doonaa cashirka ku xiga insha Allah haddii Ilaahay raado. makaana waxaan iga tagayaa. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.